waxaa deganaan jiray ciidan la yiraahdo ciidanka faqashta anu dadku ay yiraahdaan reer guuraaga ama dadka reer Soomaalida ay shicibku ay u yaqaaneen ciidankii faqashta ciidankaasi jabhadii saran buu kula dagaalami jiray meelahan oo khaatumo meelaha ugu rismisan iyo jeel ay joogeen baheed ay ugu soo maray aniga waxyaabo badan baa iga soo maray wax kasta aniga xitaa intay figeeyeen habeen madow oo dhaxan gabadano dayr sidan oo kala dhacayso ayay waxay ugu rusheeyeen digsi biyaah ayay ugu rusheeyeen saddex nin oo aniga laba nin oo kale isba midba meel ka soo qabteen waxyaabo badan baa adigu waxay soo martay anoo yaroo xoogay kureeyara ayaanu degnay halkan kayntan la yiraahdo Mesley balle abaar ka sokaysa ilaahu naxariistay waa wiciiba magaalada waday ka ahaayo bariga joogay dabeed afar baa ka baxay sanguduuriyo san waaweyn baa ka baxay xeradan ciidanka faqashta deganay magaalada dhanka waqooyi bari kaga taalay dabeed waxay yiraahdeen gurigayagii reer miyiga caruurteeda maqal baan la joogay gurigayagii soo galeeno waxay kala baxeen mariyihii uska galahaay aan caruurta ay huwanaysay reer miyiga waqtigii hore iskaga jiray miyiga baadiyi hore iska baadiyi caadiga aha dadku way iska feeray qaawanaan jireen markay doonaan qaydad yaryar mariyahooda biyahan badan iyo waxan qasaashan badan iyo nadiiftan ma jirin dadku dad badwaano waxa uska gaadu doonaan dhowr bilood qasaalan qofku mariyihiisu ay sida habeeda geelo kale sifraa geelo kale oo casaadaan alaabadii aan huwanay bustayaal cayda laga keenay iska warrano xubno meelaha laga keenay wixii bay ay guriga ka urursadeen caruurta mariyay maxay huwanaysay wixii mare taale u sagale koodhadkii shaadhadkii la iska bixiyay meelaha la sursuray aqal Soomaaliga alaabtii bay wada qaateen way urursadeen afar nin bay haayeen si waaweyn dabad saasoo kale nooga soo kacay halkaas aabahay baa markii gurigii meeshii ay finish ka dhigan yimi ay reerkii baadeen habeenkii soo hoyday uu yimiyo wuxuu dabatana ninkii halkan ay gurteen wuxuu ka daba tagay inay galab ahayd iyo mid ka daba tagay inay subax ka daba tagay waciib uu yimi alla yaa raxmayo halkan ugu yimi magaalada wuxuu niman baa halkan askarto ciidanka ah oo halkan shalay uga baxay magaalada alaabtii mariyihii uska galahay bustayaashii wixii caruurtu wanaysay bay soo gurteen alaabtii reerka gurigii waxba kaga ma iman sanduuq xuno sanduuqyadahan birta yaree la kala jimtay inta kala jibiyeen bay macad wixii ku jiray ka soo gurteen marka alaabtii horta waa laga qaaday kii taliyaha wuxuu afartin halka marishalato alaabtii uska galahay ay ka soo gurateen reerkan soo saara xerada waa loo diray waa ciiba la hadlay ilaahay u naxariistay wuxuu ku yiri ninkaas reer miyo halkan wixii alaabtii meesha guriga caruurtu wanaysay wixii uska galaha nimanka soo gurtay waxa saqajaankaas maxay ahay alaabtii horta aniga dhacdooyinkaas ay igula yaab badnaa waxyaabaha adigu wax laga sheekan karo ma wax waxyaabahaas ay soo maray intii aan meesha soo joogay farsamooyin taay ka mid yihiin